madaxweynaha ruushka ayaa daaha ka fayday hub cusub oo nuclear ah kaasi oo baalmari kara nidaamka difaaca Mareykanka isla markaana duqeyn kara bartilmaameedyo caalamka oo dhan ah waxa kale oo uu ka hadlay hubka hadda ay haystaan kaas oo ka horumarsan gantaalada qaar ayaa 5 jeer codkooda uu ka dheereyn kara waxa uuna arrimahan uu ka sheegay khudbadiisii sanadlaha ahayd waa kan Cabdiraxmaan Bidaan oo ka warrama Vladimir Vladimirovich Putin weligii meel ma soo galo sanqadh la'aan Vladimir Putin ayaa madasha soo fuulay isagoo jeedinaya khudbadiisii sanadla ahayd dadku waxay filayeen inuu ka hadlo arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada waxba aanu ka yidhi arrimahaasi dabeetana hogaamiyaha Kremlinka waxa uu ka yaabsaday qof walba oo halkaasi joogay shaashad weyn oo video ah ayaa lagu soo bandhigay hubkii ugu dambeeyay ee nuclear-ka ah ee Ruushku haysto waa 200 oo tan oo gantaalada qaaradaha isaga gudba gantaalo cruise ah oo mashiino nuclear ku xidhan yihiin oo bay yiraahdeen meel kasta ka talaabi karaya waxaana uu sii watay hadalkiisa bandhigina waa uu sii socday gantaaladuna way iska soo daba dhacayeen waxaana la socday digniin reer galbeedka loo jeedinayay kuwa isku dayay inay Ruushka xakameeyaan way fashilmeen ayuu Putin yiri waxaana uu raaciyay inaanay baalixoofta ka ahayn waxaan filayaa inaan gelayno haddii aanba horay ugu jirin dagaal qaboobo cusub mana aan hadalka Putin waxaad maqlaysaa madaxweyne Trump oo xabadka garaacanaya oo ka hadlaya inuu haysto qalab nuclear kan ugu fiican laakiin Moscow waxay u arkaan ficilkoodan inay istifaacayaan ugu yaraan hadalka madaxweynahayga ma ahan dagaal qaboob haddii aad eegayso asalka dagaalka qaboob ee soo socda fiiri dhanka galbeedka Kremlinka ayaa dhambaal xambaarsan 2 fariimood ku diray hadalka Putin fariinta hore ayaa reer galbeedka loogu sheegay inaan Ruushka la loodin karin fariinta kalena iyadoo doorashadii la gelayo dhawaan ayaa loogu sheegay dadka Ruushanka ah in Putin oo la doorta ay tahay amniga oo la sugay waana sida Kremlinku rabo in dadku madaxweynaha u arkaan haybadda qaranka iyo ilaaliyaha ummadda inuu yahay